حي على الصلاة. iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey qaar ka mid ah waddamada Yurub iyo Ameerika ay ku soo badanayeen khilaafka dhex dhasha maamulidda masaajidda ay Soomaalida gacanta ku hayaan, kaasi oo sida la sheegay salka ku hayo arrimo la xiriiro awood qaybsi qabiil, ayaa waxaa dhowaan soo baxday warar sheegaya in masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ah kan ugu weyn ay Soomaali ku leeyihiin guud ahaan dalka Norway uu qarka u saaran yahay in uu xirmo khilaaf maamulkaasi oo 4 sanaba mar la doorto. Haddaba warbaahinta goobjoog xarunteeda magaalada Oslo ayaa waxaa u suurta gashay inay booqato qaybaha uu ka kooban yahay masjidka, islamarkaana bulshada la wadaagaan xaaladda dhabta ah. Sheekh Xuseen Cumar Maxamuud oo ka mid ah culamaa u diinka magaalada Oslo ayaa khudbadii Jimcaha si qoto dheer kaga hadlay sida lagu helay masaajidda ku yaala waddamada reer galbeedka oo markii hore qaxooti ahaan lagu yimid. soo gaadho waqtigan hadda joogno waxaad ku maartay aad arkaysaa dadka hadda soo galay halka dad qaxooti baa yimid meeshan, dad hore oo fara ku tirisa baa u yimid shaqo maartay u yimid kuwa laftigooda shaqo raadis ma iska hayn. intan dambe dad qaxooti baa yimid, ayagoo dad qaxooti ah oo halkan yimid inta haddana kaniisadooda in masjid loo bedelo arrin sahlan maaha. dadkoo dhanna uma qubina, dad baa u qumay, dadka u qumayna way ku guuleysteen. idan waxay ku tusinaysaa taasi meel kasta uu qof muslimi joogo inuu baytullahina uu joogo. waa maalinta jumcada ee la isku sheegayo, la iswacyi gelinayo, la istoosinayo. ayuha alikhwatu alkiraam, khulaasada waxa weeye masjidka ciddii maaragtay muxuu ahaa u isticmaasha wixii loogu talagalay waxaan ahayn wacdi weyn baa kaga soo arooray. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الناس. هدي أبو إزديكستي وحي الله سمي وحنا هنا تدو أديكستي. وحكلا الدينين لسيي عدي صوفر الجلساء يعني ما تحبك لضعنطا. إلهي وحي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مكة كان دينين بوسيي قفكي محوها الدمعة ماشي اللو صوما تهيرانيي inuu khalkhal galiyo uu ka kaxeeyana maartay taas wacdigaaba u yaala. waxaana maartay la faray dadkii kuwa muuminiinta ana waxaana la sheegay inuu yahay meesha laga helo inama ya'muru masajid allahi man aamana billahi wal yawmil aakhir. intii aan ku guda jirnay u kurgelidda xaaladda masjidka ayaa waxa ay suurta gashay in aan mikrofoonka la dhex maro waalidiinta carruurtooda wax ka barto madrasada Tawfiiq iyo macallimiintooda, kuwaasi oo aan weydiiyey dareenkooda ku aadan khilaafka iyo sida ay u arkaan. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. iminka waxaan ku suganahay masjidka Tawfiiq Islamic Center oo maalmihii u dambeeyey warar la isla dhex marayay inuu gudaha masjidka iyo howlihiisiba ay istaageen. hadda waxaa la joogo qaar ka mid ah waalidiinta masjidka Tawfiiq oo aan wax ka weydiin doono xaaladda masjidka guud. waxaan marka hore ku bilaabayaa Hidaayo, kusoo dhawaad TV goobjoog. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan leedahay Hidaayo Maxamed Cadow, waxaan ka shaqeeyaa masaajidkan u qadmeeya gabadha masaajidka u qadmeeysa kalbo magacaas waa in soo gaaraan umaleynaa. har iyo habeen anaa fadhiyo masjidkana ma xirno, balaayana Ilaahay ka koriyay, mana balaayana ma hayso. wax dhibaataan aan ku aragna male, ku tiri kuteenta ay akhbaaraha galiyeen wax ka jira malaha. gadaashaada Hidaayo waxaa ku qoran 10 umaleynaa in maanta halkan lagu qoray. bal maxaa u sheegaysaa dadka ku daawanayo TV ka daawanayo iyo guud ahaan caalamka? waxaa cadeynaya in maanta 10 lagu dhigtay oo waxaa cadeynaya alaabtii oo dham qalabkii oo dham qalb wala inta si doonaan bali lagama aruurin sababtoo bariya axada habeenka isniinta galiya si fiican loo ritaya loo hagaajiya meel lagu wada aruuriya, laakiin caawa kale sidaan u yaalaan sidaas oo cadeynaysa in masaajidkeena noo furan yahay oo wax dhibaataan ka jirin.
waxaa caddaynaysa masaajidka waa ujeediin aan dhex joogno casharada lagu qaatay waa kuwaas sabuurada ku qoran oo maanta bisha 12 tahay lagu qaatay 2019 marka wax dhibaato ma jiro meelihii oo dhan waa kuwaasa adinkina waa maqashiin kolba maxaa ugu baaqaysaa dadka ku daawanayo jecel in masaajidka xaaladiisa ay wax badan kala socdaan waxaan ugu baaqayaa dadka inay tahay hadalku been ay tahay ogaada oo hadalkii aan in cadeyno oo har iyo habeen aniga aan fadhiyo oo maalina aan ka maqnayn habeen aan ka maqnayn habeenka waxaan ka hogaa kala markay tahay 4 saac habeenimo aan ka hoydaa 10 subaxnimo u yaqaanaan marka hadalada meelaha la marayo akhbaaraha beenta la sheegaya inay ku tirid ku taantay been tahay ayaan cadeyna aniga Allah ka cabsadaan dadka beenta fidinayo in cadaabka lagu galayna ogaayaan beenta marka waxaan laahay deris masaajidka wax la xidhay wax dhibaato ma jiraan dadka waxa sheegaya ee la wareegaya magaalada waxa way dambina way shaqaysanayaan masaajidkana wax xidhan ma jiro wax baa lagu bartaa waxaan ku dhawaan ku faraxsanahay waan joognaa cidna lagama laha waxaan ku dhahay qof waliba waa Soomaali magaceeda ayaa masaajidkan ku baxay waxaan qofna lagama le qof walba uu iman karaa qof walba uu joogaa caruurteeda ay dhigata caruurta dadkoo dhan baa dhigata ooyooyinka ku dhigta aabayaasha ku dhigta wax la xidhayo iyo wax la xidhi doono midna ma jiro dadka waxa la wareegayaana dambira way shaqaysanayaan wax la xidhayaana ma jiree yaani been iyo dambi ku lugoy dadka masaajidka ku xiran ama jecel in masaajidka xaaladiisa wax badan ay ka ogaadaan maadaama xilligii salaada maqribka ay hayso maxaa ugu baaqaysaa dadkaas waxaan ugu baaqayaa haddii aa waxaa maqasheen waxba kama jiraan wax ka jira ma jiro tawfiiq isniintana lama xidhaayo isha ka dambaysana lama xidhayo weligiina lama xidhayo dembigiiyo beenta iyo ceebta iska daaya asalaamu calaykum aad bay mahadsan tahay Faadumo sidoo kale waxaa dhinacayga fadhido Nasro oo kamid ah waalidiinta masjidka Tawfiiq hooyooyinka ku soo dhaw TV Goobjoog bismillaah abu magacayga waa Nasro walaal waalidiin ah ilmaha ii dhigta masaajidka wax xiritaan ah nama maqalin dadka uun hadalkooda waa ka maqnaa durduurka laakiin hadda masaajidka hawlihiisa sida caadiga u socdaan waxa leedahay masaajidka wax gaabis oo ku imaaday hadii ay haleeda dhankii waxbarashada caruurta iyo sidoo kale hawlihii masaajidka salaadihii ma jiraan leedahay waxaad ku turkateen inay taa u maleynaa dadka arintaas ka faafiyay masaajidka maxaa ugu baaqaysaa inay iska dhaafaan dambiga iyo waxay soo hubin ku turkateenta iska dhaafaan ilaahay ka cabsadaan waa u baaqilaa aad bay u mahadsantahay sidoo kale waxaa jeclayna wax ka weydiin aragtideeda salaado oo kamid ah waalidiinta masjidka hay ku soo dhaw TV Goobjoog salaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Salaado Maxamed waxaan kamid ahay waalidiinta caruurta kansada masaajidkan muddo 2 sano ah maalin kasto sabtiga iyo maalin kasto axad waa imaadaa Macallin Sabdow waa bara ka mid ah barayaasha madrasada Tawfiiq waxa uu gacanta ku hayaa tiro arday ah waxaan booqday xilli oo cashir siinayay ardaydaasi waxaana dhex martay sheekada tan fadhido ku soo dhaw macallin marka hore TV Goobjoog السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أدبا وما سنتها ولاكي ودوهي waxaan ku sugnaa goobta sheegtay saddexaad waxaan ku dhiganaa dugsi waxyaabaha Yurub lagu joogi karo waxa kamid dacwada in laga shaqeeyo nabiga kaleey salaatu wasalaam tuu yiri dacwada waa in laga shaqeeyo quraan baan ku baranaa caruurta noo imaado quraankana barnaa insha Allah taala wax dhib in lama kulna alxamdulillah ilaahay ma iskale waa gartay macallin oo maalmihii u dambeeyay waxaa jiray warar sheegayo in madrasada iyo guud ahaan masjidka Tawfiiq howlihiisa ay istaageen bal ka waran arintaasi haddii aad maqashay maxaad dadka ku daawanay aniga aad nooga sheegi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal fiican oo binaan saxaafadda waxa laga yaabaa marka qaarkood wararka inay iska soo qaataan laakiin sad noo joodid baa naga warhaysid ama noola joodaba masaajidku uu furan yahay wuxuu furan yahay waa la dacwa khilaaf dadku way iskhilaaf karaan wax dhib kuma sugna laakiin dacwada sideeda khilaafku ma artay istaajis anaga dacwadeena wadanaa ardadaan u dhignaa macallin iskhilaafsan malaha waalidiintii ardada way isku xiran yihiin ayaga arrimooda ka tashto wax dhib oo nagu hayana ma jiraan alxamdulillaah ala nicmati alislaam wal iimaan waa garta macallin waxaad leedahay sabtidii hadda maalmihii caruurta tarbiyada islaamka iyo xifdinta quraanka howlaheedii sidii loogu talagalay u socdaan wax joogsada ma jiraan leedahay hal maalin moogi inta kale madrasada way furanta dugsiga
taxfiid baa furan isniin ilaa khamiis socdo sabti iyo xad oo guud ahaan loo wada dhegan yahay ee macallimiinta badan soo xaadiraanna wuu furan yahay wax xiran ma laha waxaan jeclaan lahaa xataa ka soo qaado xirnaan lahaa dee dadka dhaawac xiran ama isdhex mara inay imaadaan arkaan ee dadka xitaa soo kala dhexgalaan ilaahay qur-aanku wuxuu ku yiri inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum xataa haddii xitaa goob banaanaha laga sheegay dee masaajidka waa u wada dhanna anagu maarata waan ka wada simannahay cid khaas u leh ma laha diinta nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaxasha rasuulka uu ka tegey waxaa la yidhi waa dadkii dhan bay maarata mas-uulka ah ma hal qof wax loogu tagayay ama koox masaajidku iska furan yahay alxamdulilah calaa nicmati alislaam wax istaagay ma laha saana ku socon doona insha allahu tacaala khilaafka uu iska dhaca muslimiinta meel kastay joogaan wuuna iska soo afjarmi doona insha allahu tacaala hortaada waxaa yaala kitaab qur-aan waxaan malaynayaa in ardada cashirka siinayso ardada cashirka aad siinaysay naqshii ka tansay dadka daawanaya in howlihii masaajidka ay u socdaan in istaagi ay u ogaadaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون waa tahay ugu dambeyntii waxaan iminka dhinacayga joogto maryam oo ka mid ah waalidiinta iyo macallimiinta masjidka islamarkaana ka mid a ardaydii ugu horreysay ee wax ka barta masjidka tawfiiq islamic center kuna xifdisa qur-aanka kariimka halkan kusoo dhawaaw tv goobjoog السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي قلي يرى مريم أمال كمد أرضيدي كوقلن جبسي مساجدك دويوينك واوين كان أهيد هو يدي أقول رئيس اسكندنافيا مركا مهد إلهي بأسوغان تاي ما أنتو وحان كسوغان هاي داينو هاي معلمين توفيق دروسته وحي أسعطا سيدي لوغو تلقلي واحد دروسه ديب لو دقمالي واردين تي caruurta dhalay ayaa gacanta ku hayo hadday tahay activiteed ilmaha la geeyo iyo hadday tahaybo activiteed iyo hadday tahaybo waxbarashaba marka ilaahay bay mahad u sugan tahay waa gartay maryan waxaad sheegtay inaad ka mid tahay hooyooyinkii ugu horreeyey ee ka qalin jebiyey madrasadan tawfiiq islamic center caruurtaadana ay halkaan dhigato iyo caruur badan oo soomaaliya ka waran maalmihii u dambeeyey masaajidka in la xirayo ayaa jirtay la sheegayey sidee u aragtay markaad maqashay maxaad dareentay wallaahi waan tiiroonyaday sababta soomaali haddaynuna qabriga yaraa waa ilownay qabri yar baana sugaayo dadkii waxay u bateen brobagando badan oo ka dhacayo magaalada Oslo dad badan baa jidka istaagan markaas waxay ka hadlayaan in barbaganda badan tawfiiq jimcadii ugu dambeysay tawfiiq waxba lagama qabto tawfiiq dadkaas waxaan ka codsanaynaa iyagoo ilaahay ka baqaayo in ay tawfiiq rabbi ittaqullah rabbigiin ka cabsada qabri yaro 2 mitir ilaahay waxaan ka baryaynaa walaalayaal hadaatiin Soomaali fadlan joojiya barbagandada ilaahay ka cabsada qabri yara ku suga wala qabiila kula galeen wala jaqafaar kula galeen waa garta ugu dambeyntii dadka ku daawanayo oo ka daawanay TV goobjoog ee ku sugan adduunka dacaladiisa jecelna masaajidka xaaladiisa inay wax ka ogaadaan maxaa sheegaya inay soo duceeyaan dad baa iska abuurtay iyagoo la dooranay bay wax iska abuurteen aniga wax kama sheegay laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa in masjidka iyaga ay sida u taagan yihiin inuu masjida u soo duceeyaan baytullah waa ilaahay baa xiri karo dadweynaha waxaan ka codsanaynaa warka beenta ay faafinayaan ilaahay ugu cabsado masaajidka tawfiiq waa maryan umal oo hawadeyna ka baxday
marka laga soo tago goobaha carruurta wax lagu baro masjidka waxaa ku dukada boqolaal muslimiin ah oo ay Soomaalidu u badan yihiin. Walaaca waalidiinta waa uu badan yahay. Cabdifitaax Daahir waa xubin ka mid ah guddiga waalidiinta ee masjidka. Waxa uu qabaa in uu jiro khilaaf, laakiin sida la tilmaamo uusan ahayn. waa tahay iminkana waxaan dhinacayga joogo cabdifitaax Daahir oo ah xubin ka tirsan guddiga waalidiinta masjidka Tawfiiq. marka hore kusoo dhawow TV Goobjoog. aad iyo aad baad u mahadsantahay daacad, waa kaaga mahadcelinaya fursaddan aad siisay. waa garta cabdifitaax, bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa howlaha guud ee masjidka iyo carruurta xilligan. waxaan u malaynayaa waalidiinta carruurta ay u dhigatay inaa ka mid tahay. maasha allah, anagu waxaan nahay waalidiinta. in muddaaba carruurtu ay dugsiyada halkan uga dhiganayeen Tawfiiq. waxaanu nahay guddidii maamulaysay oo guddida waalidiinta oo dugsiyadu inay si habboon oo habsanina u socdaan ayaan ka mid ahay. si fiican bay inoogu furantay alxamdulilah. markii fasaxa laga soo noqday si fiican bayna noogu socotaan. waxaan rajaynaynaa in waxa shaqada iyaduna ay tahay in mar walba dugsigu uu sii fiicnaado, carruurtu ay helaan waxbarasho qiimo leh. taasaanuna runtii aada uga shaqaynaa. si fiicanna way inoogu socotaa. wax naga qabiyayna waa jiraan oo aanu insha allahu aanu qabyo tiri doono haddii ilaadan ka dhigo. cabdifitaax, maalmihii u dambeysay waxaa jiray warar sheegaya in masjidka Tawfiiq howlihiisii uu istaagayo oo dhowaan masjid kale la wareegayo. bal ka waran arrimahaas maxaa kala socdaa? runtii wax allaale waxaan kala socdaa ma jirto. way jirtaa dhibaato, way jirtaayoo xoogaa xubnaha masjidka dadka ka tirsan in muddo abayna arrinkani socotay. wax mar keliya dhacday maaha, 3 sano 4 sanoay socotay. wax walibana xal bay leeyihiin. waxaan rajaynaya in arrinta xal loo helo, waana wax ku xidhan dadka xubnaha masaajidka ka ah xalinteeda iyaday u taallaa. laakiin masaajidku mana xidhna, goor la xidhaya waana la xidhayaana ma maqal. marka waxaad leedahay khilaafkaas marka laga yimaado cabdifitaax, howlihii guud ee masaajidka sida waxbarashadii carruurta, tarbiyada islaamka, bal ka waran howlihii guud ee masaajidkii, salaadihii ma ka socdaan mase kulli waa istaageen? leedahay khilaafkaas ayay dabada ku hayaan. wallaahi runtii anigu waxaan isleeyahay masaajid sidiisaba waxa loogu yimaadaa waa in salaad lagu tukado, diinta lagu barto, tarbiyad wanaagsan carruurta. weliba dadkeena specially qurbaha jooga, carruurteena iyo inaguba waa meeshan ku noolnahay ee naftu inagaga jirto. waxa weeye waa masaajidada. intaa kaliya nuunu nimaadnaa, intiina masaajidka waa laga helaa. waa garta cabdifitaax, ugu dambeyntii dadka ku daawanayo jecel masaajidka xaaladiisa inay warbixin fiican ka ogaadaan waxa uu marayo, iyo carruurta iyo waalidiinta xilligani kugula nool wadanka Norway, gaar ahaan caasimadda, ee carruurtooda wax ka bartaan, maxaa ugu baaqaysaa? masaajidku siduu u furnaa buu u furan yahay. waxaana rajaynaynaa anugu ka waalid ahaan uu danqayaa buuqa masaajidka ka jira. kuma faraxsani qof Soomaaliya oo muslina oo ku faraxsani ma jiro. marka waxaan leeyahay masaajidku waa idiin furan yahay, dugsiyadii waa idiin socdaan, waa socdaan ciddii waalida aan keenin. annaga shaqadeedu waxa weeye in carruurtu ay helaan inay bartaan kitaabka ilaahay. shaqada aanu u joognaana waa taas. marka waxaan leeyahay ciddii warkaasi dhegahooda ku dhacay masaajidku wuu xidhan yahay, waxba kama jiraan. masaajidku wuu furan yahay, carruurtaydaa dhigata. carruurta walaal guddoomiye Siciid 900 oo arday baa masaajidkan dhigata. maasha allah. waxaan rajaynaynaa marka la furo 2 bil kadib meeshan iibsanay oo lacag badan laynaga siiyey lokaalkaas, in ay laba jimbaaranto carruurteennu ay helaan waxbarasho. marka annagu waxaan leeyahay masaajidku waa furan yahay. fariin ayaan dadka Soomaaliyeed aan u gudbinayaa ah, midna waa annagana khusaysaa, midna waa dadka Soomaaliyeed ee ay dhibayso in masaajidkii buuq ka jiro. waxaan leenahay walaalihii dibadda jooga inay noo soo duceeyaan in arrimaha masaajidka ee naga khaldan in aanu sidii inuu ilaahayna waafajiyo inaan saxanno. midna waxaan leeyahay walaalaha reer Tawfiiq, waxaan leeyahay ciddii dhib wadana ilaahay baa og.
anuu haddaan dhibka masaajidka wada ilaahay iga qabto ciddii wanaagga tawfiiq ka shaqaynaysa iyo ciddii wanaagga ummaddan soomaaliyeed ka shaqaynaysa waxaan leenahay ilaahayow iyaga jidka tus intii buuqa wadana ee dhibaato nagu wadana naga qabo waxaana rajaynayaa in xal la helayo haddii la wada hadlo xal waa loo helayaa masaajidka waxaana waa hawl lagu jiro inay xalisantaanana rajaynaynaa aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdifitaax ow daahir oo ka mid ah guddiga waalidiinta masjidka tawfiiq. gudoomiyaha guddiga waalidiinta masjidka tawfiiq islamic center siciid maxamed sheekh ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey sida ay howlaha u socdaan. waa tahay waxaan ku suganahnay iminka xafiiska gudoomiyaha guddiga waalidiinta waxaana ila joogo siciid maxamed sheekh oo ka mid ah ama oo ah gudoomiyaha guddiga waalidiinta. siciid ku soo dhawow marka hore tv goobjoog. waa mahadsantihiin waa dhowah. waxaad faahfaahin guud naga siisaa marka hore anigii daawadayaasha xaaladda guud ee masjidka tawfiiq iyo si ay wax u socdaan. masjidka waa furan yahay, waa lagu dukadaa, howlihii ka socdana way ka socdaan oo ilmaha qur-aanka loogu dhigo iyo waalidiinta maasha allah si fiican u socdaa. waa karta siciid oo maalmihii u dambeeyey waxaa lasii dhex marayay hadallo sheegayo in masjidka jamcada soo socota la xirayo, howlihii guud ee masjidkana ay istaageen. bal u cadday dadka ku daawanaya. bismillaahi dhammaan ummadda i daawanayso iyo tv-ga goobjoog oo saladaacad nagala joogo waa mahadsan yihiin. marka koowaad waxaan leenahay horta ilaahay ha laga baqo oo barobagandada iyo waxaan jirin dhammaan social mediaha lagu maaragtay baraha bulshada lagu shaacinayo ha layska daayo oo ilaahay ha laga baqo. masaajidka hadda annagaa maamulno oo ah guddiga waalidiinta, howshii ka socotay si qurux badan ay u socotaa, ilmaha diinta way ku bartaan, salaadii waa lagu dukadaa, wax la xiraayana ma jiro, wax xiranna ma jirto. waxaas waa wax been aan sal iyo raad lahayn. marka waxaan codsanaynaa haddaan nahay waalidiintii masaajidkana gacanta ku haya maamulkiisa saacaddan la joogo, anigana aan ahay gudoomiyaha guddiga waalidiinta, waxaan caddaynaynaa si buuxdo oo daacad ah oo alla kacabsi ku jirto in masaajidka uu furan yahay, howlihii ka socdana ay socdaan, carruurtana dugsigooda ay dhigtaan, hawshiina maaragta aan wadna annaga oo waalidiin ah, masaajidkana aan mas-uul ka nahay, ugana nahay owlaadeenna, ilaahayna inaan uga cabsanaa fiican. barobagaanka iyo beenta la sheegaya jimcaha la xiraa, cid xiraysa male, wax loo xiraayo sabab loo xirana meesha ma taalo. masaajidka soomaaliya iskale, muslina iskale, khaasatan soomaaliya iskale, wuu furan yahay wuuna furnaan doonaa biidni illaahi insha allah. waa karta siciido ugu dambeyntii dad ayaa ku daawanayo kaa daawanayo dunida dacladeeda iyo tv-ga goobjoog intaba maxaa ugu baaqaysaa dadkaas ku daawanayo dada soomaali naga soo wacayo, warbaahinada kala duwanana soo wacayo, masaajidkii inuu xiran yahay sheegayaan, dadkaasi maxaad ugu baaqaysaa codsiga guud oo gudbinaysa muxuu yahay? waxaan leeyahay ama dhammaan dadweynaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa horaa waxaa loo yidhi horta maaragtay dad waaweyn markaan nahay inaa waxaa fiican waxaa hubto oo kalaan saxiixa ku hadasho, maadaama dad muslima aan nahay, islaamnimada inaan horta maaragtay meesha aan ka been fariimayna xataa inaan fiirino. dadka qaar culimmaday caynayeen, dad xanuunsan way iska jiraan, ilaahay ha caafiya inta xanuunsan, laakiin wax la xiray iyo wax la xiraayo midna ma jirto, dhibaato loo xirana meeshaan ma taalo. marka ummadda waxaan ugu baaqaynaa masaajidka masaajid ilaahay waaye inuu furnaado, uuna furan yahay, waa waxa laga shaqaynayo. cid tiri waan xiraynaa ama xiraysana ma jirto, beenta ha layska dhaafo. waxaa calaamto cajaa'ib le soomaaliya layga soo wacay aniga kula hadlaaya dad famil ka mid ah ay leeyihin masaajidka tawfiiq waa la xiray. marka qofka oo baraha bulshada ka shaqeeya ama maaragta dadkan ka shaqeeya idaacadaha jaraa'idada qoro ee qoraaya masaajidka sheeka beena ka qoraaya aysan ogeyn oo sal iyo raad lahayn, wallaahi ilaahay wuu idin weydiinaya maalinta qiyaamo. li'annahu hadalka ku hadlaysa ka fiirso, miisaan u yeel, waxa bulshada a u gudbinayso maaha. tawfiiq waa masaajidka keliya ee yurub ku yaallo ee ma aragtay si saxa oo daacad ah, weliba mu'tamarka halkan lagu qabto, shuyuuq badan la keeno, yurub geeska gees laysaga imaado. dadaalkaas weli ma gebin, waa wadnaa insha allah, waana wadaynaa. bini'aadankana seenberide waxaa laga rabaa maaragtay inuu dhinac walba ka toosiy. aniga markaan maqlo meel baa wax si ka yihin waa inaan hubiya cidda owlada u ah oo degaanka ah oo saxda ah. laakiin qof hadda kanada degan ama soomaaliya degan ama jaraa'id ka shaqeeya inuu soo qoro maxaa la
la dhahaa ii sheegeen tawfiiq waa la xiray ama waa la xirayaa ama mid Norway joogooba imaanin inuu soo qoro waa qalad marka ummadda waxaan uga digaynaa been fariinka iyo beenta la faafinayo annamiib laa yadkhul aljanna qofka bini'aadanka waxaa la rabaa carabkiisa inuu ilaaliyo uu ka fiirsado waxa uu qoraayo ama waxa uu dhahayo waa baytullaahi wuu furan yahay wuuna furnaan doonaa waana joognaa annagaana mas-uulka ah macallimiintu waa joogaan hawshii siday u socon jirtay u socotaa haddana insha allah meel kaloo dugsiga qayb ka midana waa la furayaa oo maaragtay hore loogu talagalay in la furo maadaama tawfiiq waxaa dhigta 957 ardayaa dhigto oo meesha ay cariiri tahay meel kaloo lokaal ah oo dugsi ah la furayaa haddii ilaahay idmo bisha soo socoto horteenna waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inay waalidiinta ilmaha meelaha kale ka kala joogaan ama aan dugsiga u dhiganin oo barbagaanka loo geeyay ama dhigan jiray oo in laga joojiyo la rabo dadka waxaas faafinayo inay dib u fiiriyaan waan joognaa sabti axad walbo dugsiga waa la dhigaa taxfiidka waa la dhigaa wax walba tafsiirka waa socdaa hawshii sideeda u socotaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaa maaragtay aad warkan aad xaqiiqsataan oo saxda ah oo maaragtay aad waxa beenta aad meel iska dhigtaan insha allah aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahay Siciid Maxamed Sheekh oo ah gudoomiyaha guddiga waalidiinta masjidka Tawfiiq oo sheegay in ay ayagu masjidka gacanta ku hayaan furanayahana masjidkana howlihiisa si caadiga ay si habsami u socdaan aad baa u mahadsantahay Salaad Hussein Maxamuud Daacad TV Goobjoog Oslo Norway